Barasabka gobolka Togdheer ay weheliyaan taliyaha ciidanka bilayska ee gobolka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid ah iskuulada magaalada Burco. Kormeerkan oo ujeedadiisu ahayd sidii dhalinyarada looga wacyi gelin lahaa qabyaalada iyo qalalaasaha ay ka qayb qaataan marka ay rabshaduhu ka dhacaan magaalada Burco ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bid taliyaha bilayska ee gobolka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa washiir ardaydiisu iyaga hormadu waxa gobolka waqtigan uu ardayga ka iskuulkan iyaga ku badday kaalinta waa tigil jiray cidda talisa ama meel kasta ay joogaan ardayda gobolka iskuulkan ay u badnaayeen kuwa imika ama wasiiraha ama waxaan hadallah hadalkii waa la yiri qaran bayna yeelan hoos u noqon waxa kale idin sheegayaa Burco waa mid weeyaan yani dal yani ku guurin waxaan furaynaa insha Allah dhawaan xafiiska xiriirka dadweynaha intii laga maqnaa labadaas sano kaasaan insha Allah isugu iman doonaa kulli barasabka insha Allah yeedeen dad qorsheyn doona halka ay u noqon doono inagu nimid marka hore waa booqasho inaan ardaydeedii maadaama tiin iskuulkii Sheekh Bashiir inaan soo booqano oo in aragno wixii talaana aan kelmad laba kelmadood mar inagu nimid wax kale oo ceeb himi jiraan waxa weeyaan wixii saaw gudoomiye gobolka inay sheegay intiina isku walaala waad garanaysaa hadhow waxa la isku haybsanaya inta hebel isku class baanahay laakiin hebel isku qolaanahay hadhow ma oranaysi marka aad siyaasi noqotaan wax barataan caalamka aad gashaan laakiin aniga hebel baa isku class baanahay waa lodkayga baad hadhow isu oranaysi kaliya waxaan idin sheegaynaa inaan waxyaalaha dhacaya ee inta arrimaha siyaasadda ee sida rabshadii maanta dhawada kala dhacday iyo inay nigayni saameeyeen waxbarashadina iyana wax u dhimin amnigina iyana wax u dhimin kaliya intaan aanu nigu dardaarayaa inaad intiinaas gacaysataan amnigana ilaashataan. Barasabka gobolka Togdheer oo isaguna ka hadlay kormeerkan ayaa waxa uu fariin u diray dhammaan iskuulada gobolka waxaana uu kula dardaarmay inay nabadda ilaaliyaan. halka joogtaa wax soo kuwa kala sida kala ku jira wax ay wax suuti nimanka ku bartamaya muxuu ahaa talada dalka halka jooga waa u sinti kolka soo baxaan bay deen waxidii laakiin tay loolama waa nimanka ka ku sigeen dhig ku gaadhaan ma ta ka faray oo uga baahanaya dhamaanba dugsiyada gobolka Togdheer iyo guud ahaanba kuwa Soomaaliland inay arday wax baranaysa kalaas oo dhigata oo iyagu wax soo ah inanka baadiyaha ka yimid hogaamin iyo kuwa hogaaminaya ay noqdaan si kastaba ha ahaatee kormeerkan mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ee magaalada Burco ka dhacayeen mudaharaadyo kuwaas oo geystay khasaaraha dhimasho iyo dhaawacba. Maxamed Faarax Bilo wararka telefishinka caalamiga Somsat magaalada Burco.